maxamuud ismaaciil xudaydi ayaanu maanta joognaa gurigiisii waan ku soo booqanay dhagaxa malxabsani madfaca ma xisee maandhow midhka buuraniidoon marka ereyga uu maalintaa yidhi iyo codkan casrigaa imka haddaan qaado way isku mid dhagaxa malxabsani madfaca ma xitee dhagaxa malxabsani madfaca ma xitee maandhow midhka buuraniidoon hayaay maandhow midhka buuraniidoon maaragtaa in ereyga kani uu dabada ku hayo taariikh fog waxaan rabaa inaan kaa waraysto oo aad balbalaariso oo aad qasho hadii ilaahay ka dhigo qaraamiga kow qaraamiyo maxaa tahay qaraamiyo maxaa tahay su'aashaasa wanaagsan sax qaraamigu kan maanta jooga ma aha shuqulna kuma laha Soomaalidu intay wax maqlaan bay wax kale ku qabaan qaraami waxa la oran jiray gabay dhalinyaro ka soo horjeeda gabayada jacaylka ee runta ah ay sameeyeen dhalinyaradaas waxa la oran jiray kabacadna waxa weeye karaan yar kuug iyo beere gaal u shaqaynaya marka heesaha kan imika kuwana qaraami u yaqaaniin oo loo yaqaano heelo heesan heelo loo yaqaano magacyo badan bay sidataa waa heelo waa hirwo waa dhaanto waa wiiglo waa gooh intaasoo dhan bay sidataa waxaasoo isbedela ugu sameeyey way ka da'weyn tahay heeladu gabayga ka hor in cabdulla xatan ama raage ugaas baa erayada tan dhaantada ah la isticmaali jiray heestan inay ka weyn tahay anigaa kuuba sheegaya gabayada ninka laga wariyey halkaa reerkaas buu ahaa halkaa degaa geel reerkoodu leeyahay uu dhoobi ka ahaa isagu gabadh adeerkiis dhalay wuu jeclaaday berigaana in adeer guursigu dhagar buu ahaa abaar yar baa dhacday xaggii webigaa loo kacay gabadha waa la isballansanaa waa la isu warhayay oday aan aniga waxba iga yarayn ama igaba weyn oo xoolo wanaagsan haystaa waa jamraday gabadhii marka show ballan yar la dhex yiri cudurdaar kale markuu waayay buu aqalka dabadiisa istaago hadduu ballankii dhabkaa yahay biyaan dooni been ku soo sheeg inankiiba odhanaya markaasay waxay tii sakaawo ragow sidii ma jirto waleed birta soofaha u yaal yani waa laguu soo fadhiistay meeshaa balaaya ka dhacaysa haddana aysan weydo dhiisi yareed bay jiidho markaasaad kabiyihii baa daadso waa soo dhaaminayaa odaygii baa wax dareen galay odaygii inanta la siiyey halkiibu isna ku darsaday erey wuxuu yidhi go'doy buu yidhi go'doy gabal dhacay gadaashiis
danaana ma loo arooraa kanaani ma loo arooraa umay dhaqaajin way iska baxday kaal buu ka daba qaatay kaal waxa la yidhaha waran ballaaran oo warmaha ka ballaaran sida iminka la iskuma dhegdhegaya laba geed iyadoo midba sinaa ku hayo oo caday lagu madadaaranayo saddexdaa waxaan ka idhi la isleeyahay sheeko dheer wuu docda kaga qabtay warankii inankii odaygii saddex bay igaga furan tahay haddaana dhiisaan biyaha qaadin adigoo laba aan halkaa ka tegi inankii naftiisii wuu baqayo dhiishiibu qaaday gabadhii muraada dilaac ninkii ay saarayd oo baqay oo dhiishiina sida ya ninkii naxdin weyn bay ku noqotay heestii way ku darsata waxay tii hadduu dhiman lahaa rag baa u dhashaye biyaha lagu dhaamiyey dhibi hadduu dhiman lahaa rag baa u dhashaye biyaha lagu dhaamiyey dhibi biyaha lagu dhaamiyey dhibi inankii dheyga kacayo dhiishiibuu odayga madaxa kaga dhuftay wuu baxsaday danoodii xaggana ku soo noqday waayahay wixii dareenkiisii iyo wixii ku dhacay buu dhallinyaradii qayb ogeysiiyey isagii baa noqday kaabaha la dhegeysto waa la soo deegaan raacayo dalkii baa lagu soo noqday si uu ogeysiiyo inuu yimi markii hore intaanu iman erey fariinuu diray yani kolley waa niman doonaa wuxuu yidhi libaax dalandoolay duurma ceshee libaax dalandoolay duurma cesho duurma ceshee degmoy dalku way isku yaallaa yani marun baan iman markii uu degmadii yimi dalkii meeshii yimi oo beeshii la soo dhex galay wuu haddana erey yidhi ereygaasi dhalinyaradaas u dhiibayso idaacadi ma jirin de wuu foofayaa degmooy wiilal doolo geel ku hayo aan daaraynin baa dig soo yidhi yani degmo wuxuu tusayaa inuu dhalinyaradii ilmadaradiisna wato ya uu soo kaxaystay sheekadna kulusha khatar tahay waxaa ku xigay odaygii oo la boobo oo la dilo iyo iyadii oo la qaado halkaasaa dhaantadii guuxa ahaydee la fadhiyey sare loo qaaday waa la isu dhiidhiibay raggii taariikhda lahaa waxa ka mida oo marka la shaqaynayo ku guwaaban jiray dadkiisa erayo isla baddaas ah suugaantu waa bado badda wiilada ama dhaantada ama heelada in cabdilla xasan buu ahaa markii la dhisaayey tareex dhagaxa malxabsani madfaca ma xeshee maandhow midhka buuranay doon marka ereyga uu maalintaa yidhi iyo codkan casrigaa imka haddaan qaado way isku mid dhagaxa malxabsani madfaca ma xeshee dhagaxa malxabsani madfaca ma xeshee maandhow midhka buurani doon hayaay maandhow midhka buurani doon maaragta in ereyga kani uu dabada ku hayo taariikh fog marka waxaa ka xigay maytunaar nin la odhan jiray oo taariikh weyn lahaayo koox wadan jiray waxaa xigay baalbaal nin la odhan jiray haaji baalbaal diiriye faarax oo reer eelgaabad u dhashay baalbaal iyo warla gabadh la yidhaahdo wacdaro ay kala qaadeen oo laysu heesi jiray sidii hurre iyo gabadhii cambaro waaye marka baashii iyadoo kooxo kooxo loo socdo ay dhaanta tahay baa waxa dhacay meel business weyne ka furan yahay oo saylac iyo baa transiib waxa la yidhaha ka furaayo xoolaha xeebta ka dega etoobiya la geynayay
Soomaalida dheeragsay ku bukootaayeen markaasaa balwada iyo waxaasoo dhan la keenay. Nin raggaa ka mid ah oo la odhan jiray Cabdisinimo waa wixiiba ku tuntay, markaasuu baabuurkii kaga jabay meel cidla ah, lacagna ma hayo. markaasuu wuxuu tumay baabuurka daawe uu leeyahay, balwooy balwooy hooy balwooy waxaa i bereeyey mooyaane mooyaan buu yidhi. haddana wuxuu yidhi balwooy balwooy hooy balwooy waxaa i bereeyey booramey. halkii baa la iska raacay, daf baa la qaatay. kabanku markaa ma jirin. dafkii sacab buu yeeshay, dad ishuuriyo traadka isku huuriyo oo meel kulul xidho oo iska dhididiyo murqaan nooc gooniyo waalan ah ayuu yeeshay baa la galay. waxay gaadheen gabdho markii dambe la yidhi ciyaara waa tumaynaa, ayagoo dirbaankaa yar ku ciyaaraya. ingiriiskii baa joogtay. nin aanan gabaygiisa hayno erey keliya aan ka hayo, gabaygiisa hala waayo ba u badnayd. waxaa ku jirta hala waayo weeshii xasan iyo weririgteedii waa ciyaarteedii. baalkii wuxuu gaadhay in laislaba galo oo ingiriisku uu dabagal weyn ku sameeyo oo niman macallimiina hadalkii jacaylkii oo waxaa intay bedeleen bay ereyo wadaniyo qiiro ah meeshii soo geliyeen. ingiriiskii wuxuu dareemay in kicinta dadweynuhu ay halkaa ku jirto, de isaga dan iguma jirto. odayaashii iyo cuqaashii uu mushaharka siinayay weli carruurtiinu hadday xumaato anigu kuma jiro, waxa kan waa ceebay samaynayaane. odayaal daacaday ahaana colaad baa la daba qaaday dadkii hawshaa waday. anigu raggii la shiidayay baan ka mid noqday. waanu la dhowman jirray waxa kabankan imika dadku igu soo dhaweynayo boqorka kabanka uu layleeyahay. ka i weydiiya waan dafari jiro waxna wax ka naqaana. baqdin laga baqaayo. waxaa soo maray raggii howlahaas ingiriiska afka u galay. waxaa ka mid ahaa ilaahay ha u naxariistee yuusuf xaaji aadan cidli qabile oo beri dhow dhintay, ilaahay ha u naxariistee raggii u soo gubtay dalka ka mid ahaa, mutacallimna ahaa. waxay sameeyeen ereyada la yidhaahdo hubkiisu nimuu hangool yahay. ya hubkiisu nimuu dagaalnimo haysto meel harisoo hubkiisu hangool yahaanahay. ninaan hadalkiisu halqoodaarka iyo haweenkiiba dhaafin baanahay. yani waa qiiro. marka waa gobonimo doonkii. haye marka waa kii gobonimo doonka bay ahayd heesahaas. muxuu yidhi isaga iyo nin cumar dheere la odhan jiray isaguna carabiga ku gabiya jiray iyo wuxuu yidhi nimaanu hadalka yani cidibanna ma ixtiraamto, nimaanu hadalkiisu halqoodaarkiyo haweenkaba dhaafin baana. waaye halkaasaa nin keliya markaa ay la soo kaceen nin uu baray maxamed sayid kabanka oo la odhan jiray odaygii wakaa sawirkiisii cabdilaahi qarshi kowdhe. cabdilaahi qarshi baa markaa dhiiraday oo wax tumaya. cabdilaahi qarshiga wuxuu ahaa saraakiisan administrationka ee wax qorta karraani buu ahaa. waxaa lagu yidhi shaqada waanu kaa saaraynaa, iminka laga bilaabo idinma shaqaynayuu yidhi. gebigiinaba nimankii macallimiinta iyo wixiibaa iyaguna taageero weyn siiyey. ereyga ay yidhaahdaanba cod buu u sameeyey.
dilayo biyaha laga heegay baanahaye nimaan hadalkiisu harqooda arkiyo haweenkaba dhaafin baanahaye dagaalnimu haysto meel haliso hubkiisu hangoolyaha baanahaye heestii lala dhuumanayay buu stageka ula soo baxay kifaax weyn buu isna soo maray halkaa barasaabkaa la bedelayoo mid kaloo kenya wax ku xukumi jirayoo gumaysiga ku xariifa baa la keenay waa kii lahaa ka kacay kama yimiyey ka kacay kini uu gubayey ka kacay halkaasuu ka bilaabay kenya markaa ninkii kama ahaa cabdilaahi qarshi oo laga daba guuxayo abwaan waliba ereygiisa u dhiibayo baa dhagaha ka raacay oo arbushaysna yuusuf baa la ogaaday inuu macalimiinta waaweynna yahay raggii tacliinta kii labaad inuu yahay af soomaaligana ninka duraya ee ka dambeeya marka yuusuf wuxuu lahaa ilaahay hamnasasi yuusufka aan sheegaya waxa weeye yuusuf xaaji aadan cilmi yuusuf xaaji aadan markaa kooras london tana baa u yilay basaasiintii markay warkii isla gaadheen oo loo sheegay barasaabkii waxay noqotay goor u soo dhoofay london oo uu marayo cadan qabta baa la yidhi 52 meelahaas 53 bay ahayd waa markii inqilaabku ku dhacay boqorkii masar baa lagu qabtay oo wuxuu yidhi inqilaab waxaa ku samayseen soo maaha ingiriiska idin haystaha annakaasaan gobonnimo ka doonaya maxaa i xidhaysaan ha xidhina baa la yidhi uu ku guulaysto halkanuu yidhi sidaasaa ragga loo daba joogay oo loo gubaayay raadkooda marka ingiriisku kama yaraysana de waa ka odayaashoo dhan nagu dirayoo nala yidhi waa gaaloobeen oo layidhi saaqadiin bay noqdeen oo madowduna markaas ina dhagaxin jireen in sheekh lacag la siiyey iyo oday caaqiloo lacag la siiyey baa nagu diray qof walbana dee caqalkiisu maqlaayay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo weli waxaan rabaa inaan qaraamkiiba inaan weli ka dheregsanayn dadkuna kolleyba waxay rabaan inay sidaan ugu baahi qababa ayaan filayaa inay ugu baahi qabaan ama iga baahi badan yihiinba waayo anigu lakiba nasiib baaban u yeeshay inaan ku ag joogo qaraamka markaas dee lasoo maray jidkaa dheere dhaantadii iyo gabayadii iyo maxay ahayday kamankii uu soo gaadhay ee hawshu halkaa ay marayso ee dagaalkii laga soo noqday ee gumaystihiina inaga kacay weli qaraamkiibaa ilaa hadda magaciisi yahay maxaa markaa loo af soomaaliyeyn waayey magac af soomaaliya loogu bixin waayey ereygan qaraam waa erey carbeed maxaa loo bedeli waayey qaraamkuna ma aha jacayl waa tumasho waa tiigsi tumasho waxa bedelaya ereygan waxa rasmi ka dhigay dad suuqdii oo dhalinyaro ahoo aan raad raacin macnihiisa waa la foor eriyaa hadalka hadduu fooranayo waa la foor eriyaa wuxuu dhalayo ay ka soo saaraan waxay arkaan waxa markaa madaxooda ku soo dhacun bay ku sheegayaan qaraamku kii markii hore dabka gubay ee dabka qiiqayaan iyo ahaa buu ahaa waa laga soo gudbay heeladii iyo baalbaal iyo waxaasaa yimi iyo cabdisinamo marka xamar shuqulku bayn ahayn waxaas isku darkii baa dhacay qaraamkana markaa way maqleen dhallinyaradu laakiin qaraamkii loo abtiriyey shuqulkuma laha heesihii dambe ee jiiftada ahaa ee googooska ahaa ee yaryaraa wixii ka weynaaday oo dhan bay dhahaan qaraami waayo waa qaraami halkaasuba halkaasi
واسو قلوت شرعي لأنا marka sidii loo xambaarsan yahay ها waayo dadkan dambe dambe sidaan u sheegayno loo qaarto oo la faafiyo mooyee lama bedeli karo lamana fahansan waa in qoraagu u bedelaa na waraysto waa run oo uu qoro waa in wariyuhu fidiyo waa in idaacaduhu ka shaqeeyaan idaacadaha iyo wariyaha warar waxyaalo badan baan anigu u haystaa waa run waxaan u haystaa af soomaaligii berigii la xalaaleynayey 22 markaas dhalinyaro aan tirada ahayn baa masku cunay oo ku dhimatay oo miyiga loo diray qaaraan hooyadoodii aabahood ka hoos bixin 12 jiro 15 jiro qaar baa cunay qaar waashay nasiib wanaag wuu istaagay af soomaaliga waa la qoray waxa ka maqanna waxa waajib oo la sameeyaa eray bixin iminka waxa socda eray bi'in wax la yiraahdo eray bixin soo ma ahayn waa eray bi'in iminka waa la baabi'inayaa dhowr eray oo muhiim ah oo wariye iyo mid walba uu yidhaahdo waa carabi ayagoo af soomaaligana waa la hayaa usbuuc waa maxay waa toddobaadkan wariyihii odhan maayo usbuuca iyo usbuuca ka dan buu leeyahay bacdamaa buu leeyahay wuxuu leeyahay ها oo waliba ay aad ila madaxweynayaashu yiraahdaan maadaama waa kulliba haday ahaanayso waa eray maarmaan aan laga hadhi karayn yani waa erayaan waliba u haysano ereygiisii halkii eray kale oo cusub aydin ka kordhin lahaydeen wariyayaashiinu eray bi'in baa keenteen oo maadaama iyo midka odhanaya wuxuu ku hadlayaa diyaariskii gurigooda afafka dowladuhu afna waa grammar oo waa afka u dhexeeya dadka oo idaacaduhu iyo wariyaha iyo qoraagu ku wada hadlaan afna waa qoro walba afkooda suuqdiga ah iminka sanadkiiba marba af soomaaliga loo abtiriyaa kuwa u abtirinaya waa kuwa burburinaya eray bixin iyo eray bi'in baa meesha maraya marka eray bi'iyayaashii baa badan eray bi'intii baa badan beri dhaweyd baan waxaan sameeyey midho nacas ah haye qof isagii isdilaya haye kuma kee laga hayaa keebaa kuma gaadayo kuma kee laga hayaa laakaha naaska u kaltama laakahu waa mataanaha haye kaltankuna waa fiiwga haye laakaha naaska u kaltama kuma kaal warantumo kuma isugu dhiibayo kuma isgumaada yidhi isagu keebuu ahaa miyaanu kuwii ahayn miyaanu kuwii ahayn keebaa kuma gaadayo kuma kee laga hayaa waa hadal weyn ila wuxuu waa kuweebay kala yihiin ya cod baanaan u samayn intaana sii daa